بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga IT-ga ama information technology ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu waa Cabdinaas Ismaaciil, emailka sidii caadada ahayd info@sologroups.com, software reviews 44 ama 44. waxaan ku baranaa ama aan ku falanqeynaa software-ada aan isleenahay waa useful isticmaalayaasha ardayda wax ka barata shabakada sologroups.com. waxaan baran doonaa Salfield user control 2013. user control waa maamulka ama kontrolida isticmaalaha computerka ama laptopka ayaan ku baran doonaa. waa control everything. طبعا saa la socotaan isticmaalida computerada waxaa laga yaabaa shakhsi ama arday keligiis inuu isticmaalo, laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in lagula isticmaalo ama lagula share garayo waxa luqadda ingiriiska lagu yiraahdo, taasoo dhibaatooyin aad u fara badan keenta. sababtoo ah haddii carruurta isticmaalayaan waxaa laga yaabaa website aan loogu talagalin by mistake ama qalad ahaan inay u galaan, kuwaasoo ah website aadan doonin carruurta inay eegaan ama aadan u doonaynin. marka controlku wuxuu sameeyaa wax walba oo adiga aad is leedahay looma baahna in loo isticmaalo computerka ama laptopka ayuu ka hortegayaa, kaasoo furahana gacantaada uu ku jiro xilligii loo isticmaalaya. marka softwareka waxaa download kaga samayn kartaan sologroups.com. halkan ayay taallaa, saa ujeedaan waxay leedahay interface aad u qurux badan oo ah file edit windows help iyo halka uu ka bilowdo iyo halka uu ka galo. ugu horeyntii markaad isdiiwaangelinaysid waa in aad tabcan password u samaysa. passwordkaasoo mar walba softwareka ay ku weydiinayso, sababtoo ah cid walba la dooni maayo inay gasho. marka user control wuxuu ku leeyahay is on, wuu shidan yahay for sologroups.com. marka sologroups.com waa computerka haddaan isticmaalino, ma aan website-ka, waa computerka. marka halkan ayuu saan u yaalla. marka do you want to save change sologroups ta inahdo saan u ega halkan yes ayaan leeyahay. softwareko sii aada. marka isticmaalayaal kale haddii ay ku jiraan halkan ayay soo wada gelayaan. waxaad arkaysaa ama guest ayaa soo gelaysa ama qofkii kale ee kula isticmaala computerka. marka dhanka kore disable iyo stop, marka wuu shaqeynaya iminka waa on, marka stopna waa stop ma shaqeynaya. marka desktop security haddii aad doontid marka waxaad leedahay on ayaad ka dhigaysaa, san ayaad u imaanaysaa. marka halkan ayuu joogay starka ahaa ugu horeeyo. marka halkan aad timaadid sidaan u furtid waxaa kuu soo baxaysa desktop security ugu horeeya. waxa ugu horeeya uu ku leeyahay desktop wixii yaalay no moving of icons. icono desktopka yaala computerka in meelo kala duwan la geeyo, sababtoo waxaa dhacda inta badan icons ama kuwa aad meel ku geed ayaa la qaadaya ama waa la tirtiraya, meel kale ayaa la geynaya. saa aweeda qofkii isku daya inuu sidaan sameeyo waxay ku noqonaysaa dhib ay ku noqonaysaa. no recyclable desktop. recyclable desktopka rubbish binka ama meesha qashinka lagu shubo qashin qubka desktopka looma baahna ayuu ku leeyahay haddii kana xushid. no context menu right click on desktop. marka waxaa dhacda marka qaarkood right click in la sameeyo delete wax lagu sameeyo, saa aweeda content noocaas ah loogama baahna. marka restrictionkii ahaa right click ayaa wuxuu si raacsiinaya marka no send to, sababtoo right click markaa sameysid no send ayaad sameynaysaa, taasoo ah haddii halkan aan sidan aan u riixo hadda aan idhaahdo waxaan isticmaali karaa waxyaala fara badan, view, sort, wax walba. haddii icon uu yaalo iconka ayaan leeyahay send to. marka kuwaas no send, no cut, no copy, no create shortcut, no delete, no rename, no properties, no troubleshoot, wax walba waa laga xiraya. haddii aad doontid fixed wallpaper kan ayaa ku deynaysaa oo aad leedahay cid bedeli karta ma leh. marka xusuus waxaa mudan mar walba safe ayaad leedahay wixii aad isticmaashid. restriction kale start tool menu waxaa ka mid ah no start button. start button ayaa ka saaraysaa. no taskbar, waxaad doontid oo aad is leedahay ka saar ayaa leedahay. marka kaasi waa desktop security. windows security ayaa ku xigta. load ayuu ku sameynayaa. waxaad ku sameynaysaa disable, shutdown, log off, run, remove, search ka saar, my pictures, my document, up to the old way meesha ugu dambeysa. waxaad ka saaraysaa subfolders, control panel, printer. kani wuxuu aad u anfacayaa dadka isticmaala internetka fayga business ku isticmaalaya aad u anfacaya, sababtoo ah ma doonaysid isticmaalayaasha aadka u faraha badan inay waxay doonaan ka bedelaan. explorer san ayaa ka dhigaysaa dhammaantiisa. kuwan waxaan ku arki jirnay group policyga, laakiin kan ayaaba kasii fudud sida loo isticmaalo. xataa wuxuu disable ka dhigayaa command prompt MS-DOS. network oo kale hide entire network neighbor, disable file sharing, disable printer sharing, password caching. kan waa security aad u weyn oo caching ka dhigaya oo u diidaya. marka mid walba siduu u shaqeeyo all the way down meesha ugu dambeysa ayuu ku tusayaa. marka waxaad ku aragtaa
kala bedelkii wizardkii wax walba internet explorer intan ayuu disable ka dhigaya marka waa aad ayuu fudaysay loo raaco waa jirtaa hada desktopka marka la bedelayo internet explorer property loo bedelayo google ama midka lagu bedelayo meelaha looga diid halkan ayaa ka bedelaysaa ama shireenaya ma isku dhex jir disable desktop restrict ku samee disable additional printers sidan ayuu noqonayaa marka none ama all gebigooda hal mar ayaad ku diri kartaa ama none ayaad dhihi kartaa adigu bay kugu xiran tahay marka Windows title check is enabled for user isticmaalaha Windows title wuxuu noqonayaa about to save iyo save kan ayaa saan riixaysaa aad ayaad leedahay Windows title ayaa ku diraysaa exx optional save ayaa leedahay kaasna internetka markuu joogo marka kan aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah haddii internetka wuxuu kor fadhiyaa filters off use log off marka kan waa inuu ku fadhiyaa filter on and the blocked website will be filtered any blocked website marka category ahaan haddii aad doontid as a category inaad filter ugu samaysid chattingka sida skypeka ama msnka ama waxyaalahaas oo kale sex and pornography waa ka saaraysaa violence and weapons proxies and spyware hacks kuwan oo version weyn waxay isticmaalata wadamada qaarkood ayaa isticmaala sida sacuudiga iiraan waxay isticmaalaan proxy noocan ah oo eegaya keliya erayadan saas oo kale webmailka saas oo kale in search engine filter kan ayaa ugu daran markaad kan aad dooratid kuwan waa laga saaraya gebigooda drugs and alcohol dubious sites dubious waxaa laga wadaa website waxyaala maaragtay aan jirin ka sheekeeya oo maaragtay kule waxaa soo degaya maaragtay wax noocyo kale ayaa adduunyada cirka ka imaanaya oo dadka dhan wada dilaya iyo waa dubious website games iyo online games kuwaasna ka joojaya lagu leeyahay blocked website marka kuwan automatic ahaan ay block ku yihiin waa pornography adult sex crash videos waxyaala maaragtay oo waxyaalaha xunxun oo dhan oo ujeeda halkan ku qoran yihiin oo pornographiga naagaha qaawan waxyaalahaas oo dhan ujeeda automatic ahaan ayaa looga dhigay blocked websites oo sidana marka different category ay noqonayaan sawir hadduu yahay nooc hadduu yahay marka kuwa loo ogolaado marka haddii aad doontid oo aan ku jirin waxaad doontid halkan oo ku diri kartaa aad ayaad leedahay halkan ayaa details website to block http ayaad ku daraysaa u furaysaa 2/ sidan solar groups oo kale haddii aan doonayno inaan block ka dhigno waxaan leeyahay blocked timeline ayuu samayn kartaa as a part of group ayaad ku dari kartaa marka waxaa kaloo jira option ah haddii group halkan looga daro waxaa jira option ah in xilli qaarkood la ogol yahay inuu soo galo hawada xilli qaarkood laga saaro iyo optional kan oo ah count only the foreground lagu daro ama bonus vouchers ayaa u samayn kartaa kan internet cafe ayuu isticmaalaya laakiin block cadi haddaad tidhaahdid oo sidaan ah website keyword is allowed for these users to blocked qofku ahaadaba isticmaalahaas safe ayaad leedahay marka safe ayaa leedahay mar labaad waa muhiim in aad safe garaysid kadib safe markuu sidaan u sameeyo internetka ayaan furayaa markii aan furo internetka waan soo yaraynayaa internetka halkan ayaan keenayaa internetka saa ku aragtaan waxaan leeyahay iminka solargroups.com ayaan leeyahay sidan ayaan leeyahay waxaad ku aragtaa this page cannot be displayed isla markii haddii xataa lays yiraahdo ku gal proxy lagu galo it's not going to be allowed waxaan leeyahay xataa kan URL kan block dhigan ayaan leeyahay laakiin don't show me ayaan leeyahay kan iska taa marka kan minimize ayaan ka dhigayaa marka haddii aan doono highlight ayaan ka dhigayaa waxaan leeyahay delete ayaan leeyahay ka saar yes ayaan leeyahay marka tabcan waa inaad save garaysaa mar walba wixii aad delete garaysay sababtoo ah maba fahmaya systemka marka isla meeshii ayaan ku laabanayaa haddii aan refresh aan idhaahdo tabcan shabakadeeni solar groups waxay usoo noqonaysaa si caadi ah ayay usoo laabanaysaa sababtoo ah meeshii waa laga saaray oo blocking waa laga saaray ujeedadsan ayay usoo baxday marka kanna qaabkaas ayuu u shaqeeyaa allowed kuwa loo ogolaaday bing live microsoft wikipedia yahoo.com kani sababta loogu talagalay allow iyo non allow waxay noqonaysaa in aad samayn kartid kuwan kaliya ayaa loo ogol yahay kuwaad doontid tusaale ahaan konton website ay gelinaysaa website kale looma isticmaali karo shabakadaada wixii kale block ayuu noqonayaa marka group marka lagu leeyahay waa sanay usoo galayaa group ayaa ku daraysaa oo shabakada ah oo aad u fara badan miscellaneum isku dar block size do not display warning message marka haddii aad doontid waxaad samaynaysaa block ayaa ka dhigaysaa shabakale ayaad u diraysaa ama block size neutral warning sign ayaad halkan u dhigaysaa waxaad leedahay ma jirtaa leedahay looma ogol lama geli karo no download ayaa ku samayn kartaa white list marka a filter fast oo kan ah filter details report URL ka gelinaysaa
waxaad u diraysaa shirkaddan ayaa u diraysaa kaas necessary ma aha dabcan ma loo baahno marka internetka waa kaas sidaan ayaad wada eegaysaa aad ayuu u fudud yahay programs waa programmada halkan ayaa iyagan laga blocking karaya haddii aan idhaahdo allowed inta program loo gol yahay systemka inta programka ku jirta internetka inta program groupska sidaan ah haddii aan idhaahdo halkan ayaan kaga daraya details of the website URL halkan ayaan kaga daraya isla sidii blocked as a program waxaan doonayaa allowed part of group ayaa lagu dari karaa wixii aad doontid isla sidii ayuu shaqeeyaa as a principle waa isku wada mid gebi ahaantiisa boon aqrin kartaa drivers kiosk marka waxaad qarin kartaa hard drive qaarkood waxaad doonaynin in cid kale indhaha ku dhigato kana aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah haddii aan haysto driver waxyaala qaas ay ugu jiraan aan doonin qofka inuu arko kan ayaan saan leeyahay waxaan leeyahay safe ayaan leeyahay cid arki karta indhaha ku dhifan karta male wuu ka xirmaya qofkaas marka mar walba waa eegtaa marka high driver solo group dadku markuu leeyahay solo group waa isticmaalaha computerka aan casharkan ku samaynayno ma ahan shabakad marka hays odhanin solo groups maxaa laga wadaa solo groups waa isticmaalaha computerkan waana ugu yaroo kale elias.com oo kale ugu yaray marka website-ka shaqo ku male waa computerkan isticmaalaya ayaa la yidhahdaa sologroups.com ayaa la yidhahdaa magaciisa marka hide drivers kan sidan ah kiosk mode markuu yahay enable kiosk mode marka kiosk mode muxuu yahay you need at least 2 windows users to enable waa inaad haysato laba isticmaal anaga hadda saa la socotaan waxaa haysanaa sologroups.com kiosk mode waxaa loo isticmaalaa haddii ay jiraan laba isticmaale oo kale marka taasoo qofna hal wuxuu isticmaalayaa hal dhinac qof kalena hal dhinac ereygan haddii la Soomaaliyeeyo waxaa la yidhahdaa Soomaalida tabakayo ama meel oo tabaki ayay yiraahdaan Talyaaniga tabakayo laga soo gaabiyay by the way haddii aan fahno marka user logs ayaa jira marka isticmaalayaasha haddii ay ku fara badan yihiin isla markii waxaad ogaanaysaa meelaha ay galaan bishaan oo dhan tusaalahan meelaha ugu badan PC time 23 hours 22 by the way kan maba la dameeyba sidiisaba wuxuu isku shidan yahay dhowr sano ayuu shidan yahay marka saaweeda bishan inta la isticmaalo greenka internet time inta laga isticmaalay 5 sababtoo xilliga wuxuu ahaa xilli uu iska xirnayo dhowr asbuuc oo holiday ahaa marka u fiirso waxyaalahan isticmaalay tusaalahan waxaan isticmaalay Apple QFTP FTP Internet Explorer Monitor video co-editor Facebook YouTube sologroups.com طبعا Google iyo BBC marka inta la isticmaalo programmada la isticmaalay saan oo kale Snag Editor Camcorder Google oo marwalba la isticmaalo website-yada aan tagay isla sidii ayuu soo saaraya IP address-kii laakiin website-yadan aan wax ka aqriyay oo aan galay sidaan oo kale groups ma jiro marka daily usage marka saan ayuu noqonayaa marka saa ku aragtaan waqtiyadan oo dhan ilaa halkan laga soo bilaabo waa zero usage sababtoo ah computerka lama isticmaalin waxaan ku maqnaa dalxiis baan ku maqnaa lama isticmaalin waa markii ugu horeysay oo la isticmaalay waa maalintii sabtida bisha January 1 ayaa la isticmaalay intan ayuu saan soo noqday marka kaasna wuxuu kuu sheegayaa inta la isticmaalay more details ayaa dhihi kartaa wuxuu kuu sheegayaa inta kiosk halkan time extensionka qofka oo lagu dari karaa daily usageka error hadduu jiro halkan ayuu soo gelinayaa wixii error ku jiro oo computerkan oo ka dhacay xilligii la isticmaalay tabcan marka chartkaasna waa kaliya intaan ka galnay details waa kaliya intaan ka galnay email report ayaa jirta marka email report ay ku jiraa wixii la isticmaalay xilliga la soo galay tusaale ahaan recipient cc qofka identity for inaugurated PC usage ayaan ka dhigay aad username ku samayn kartaa frequency PC start inta la shiday inta la damiyay emailada soo dir daqiiqadahan unlock request content ayaa jira serverka ayaa jira marka haddii kanaan saan u idhaahdo aan idhaahdo test aan idhaahdo waa inaad gelisaa test aad idhaahdaa aniga markaan test ku sameeyey time has sent email if you fire antivirus uu blog uu ka dhigayo dabcan mar walba eeg ayuu ku leeyahay access u samee test ayaad ku samaynaysaa accept ayaad leedahay waxaad helaysaa email kaaga imaanaya halkan kaasoo confirmation ku samaynaysa kadibna isticmaalo walba oo la isticmaalo xilliga la isticmaalo meelaha la isticmaalo waxa la isticmaalay dhammaan meesha ayuu kaaga soo saaraya marka halkan this PC userka haddii aan eego waa sologroups.com saa ku aragtaan waa computerka isticmaalaha administration 38 login last success wuxuu ahaa xilligan uu ahaa oo remote ah by the way remote ayuu ahaa kan oo lagu soo isgareeyay halkan waxaa yaala setting ayaa yaala marka settingkaasoo ah general internet halkan wixii aad inta ka bedeli kartaa show list haddii aan yiraahdo waxaan arkaynaa halkan programmada Firefox Outlook waxaan isticmaalay marka haddii aan ku laabto halkan settingka database network
halkan ayaa ka samaynaysaa exclusionka, halkan ayaa ku samaynaysaa if any of your group like games do not function correctly after you install child, halkan ayaa kaga bedeli kartaa. Marka generalka iconka haddii aadan rabin kan waa ka saaraysaa, waa bedelaysaa, passwordka ayaa ka bedelaysaa. wixii log ana waxaad ka saaraysaa after 3000 entries oo kale, ama wixii kasii badan 5000 3000 1000 waxaa leedahay automatically delete ka dhig wixii entry ah. marka controlka aad ayuu muhiim u yahay. kan ugu xisaab badan aniga shakhsiyan waa driverkan oo la xiro iyo internetka oo wixii aad doontid bro ka dhigtid. kuwaan oo dhan markii la xulo oo la yidhaahdo sidan wax haba yaraatee noocyadaas ama soo geli karo, adiga ayaana mar walba password kaga bedelan kara. marka passwordkana saa ku aragteen inta ay ka bedeli karta change password ayaa leedahay. kii hore repeat ayaad gelinaysaa, kadibna email haddii ay dhacdo in uu kaa xirmo si xusuus aad ugu laabatid kan ayuu ku siinayaa. marka kanna waa controlka ugu fiican ee loo isticmaalo software kan la yiraahdo Salfield User Control 2013 oo qaabka loogu duubo iyo qaabka loo isticmaalo ay tahay mid aad u fudud. saa ku aragtaan waa registered full version sologroups.com ayaa iyagoo full version aad kala bixi kartaa, ka download garan kartaa. marka waxaan filayaa cashirkan xiisaha leh oo ahaa software reviews 44 waan kaga hadalnay Salfield User Control 2013 kaasoo ah control everything. halkan ayaan kaga baxaynaa. wixii macluumaada mar walba waxaad la soo xiriirtaan info@sologroups.com. anigoo ah macalin cabdinaasir, intaan hawada kulmi doono waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.